السلام عليكم وعن wanaagsan kusoo dhawaada casharka afraad ee barashada video editing-ka aan soo geliyo xogta halkan dibna waxaan leeyahay key project settings ayaan leeyahay okay waxaan casharkan ku qaadanaynaa qaabka loo hagaajiyo colorka muuqaalka okay in muuqaalka aad soo duubatay ama muuqaalka aad halkan ku habeynaysid in aad colorka ka hagaajisid okay ilaa iyo 3 qaab ayaan u hagaaji karnaa colorka muuqaalkeena okay midda koowaad waxa waaye in isticmaal effects okay effectigan soo qaad kan ku daa sidaas uu noqonaya soo majid okay effectigan kala hadana soo qaad halkan keen muuqaalkan sidaa uu noqonaya hadana muuqaal kala fiiri effectigan soo qaad ku sii daa asagana marka soo majid muuqaalka oo dhan waxa uu isticmaalay effect markaas aan rabo oo iqanciyay ayaan u isticmaalay okay hadii kuwaas ay qanci waayeen effectiyadan kale ayaan isticmaalayaa okay saas ugu daynaa mid kasta soo majid marka effectiga korna waa ka saari kartaa meeshan korna waa ka saari kartaa muuqaalkana waa ku sii dulday kartaa farqiga u dhaxeeya waxa waaye hadii aad tusaale ahaan ka muuqaalkan halkaan uu ka bilaabanaya halkaan uu ku dhamaanaa Soomaan hadii aan effectiga inta soo qaado halkaan ku sii duldaayo muuqaalka oo dhan ayuu effectiga saameynaa laakiin hadii aan kor ka saarayo cirif kamid ah ama qayb yar oo kamid ah muuqaalka ayaan effectiga saari karaa qaybta kalena caadi ayaa u day karaa qaybta xigta waxa ku baran doonaa waxa loo yaqaano color correction okay muuqaaladii waa kuwana saddexda muuqaal halkan ugu jirta waxa rabaa saddexda muuqaal in aan colorkooda hagaajiyo okay muuqaalka ugu horeeyo kala tusaale kili ku dheh kadibna meeshaas ku dhufanaysaa kadibna waxa leedahay color correction ayaa taabanaysaa okay halkan ku keeni doonaa meeshan waxa diyaar ku ah waxa la yiraahdo presets-ka waa color yani diyaarsan waay ma fahanta qaab diyaarsan waay kaliya ku dhaysaa kadibna muuqaalkii ayaa wax laga bedelaa okay hadda midkan ugu horeyso kale kali ku dheh sida uu naqanaa fiiri soo majid okay hoostan imaado kale tusaale ahaan kanoo kale ku dhufo sidaas uu naqanaya soo majid kanoo kale hadda ku dhufo sidaas uu naqanaya soo majid marka waa kartaa muuqaalkii wixii iska bedelay ishaas taabanaysaa waxa waaye before waaye kana waxa waaye after marka hagaajisa kadib waaye sidoo kale meeshaan taabanaysaa halkan side by side view ayaa dalbanaysaa waa kuwana soo majid before waaye inta aan muuqaalka waxba ka bedelin after marka wax ka bedeshid waa kana soo majid marka presets halkaan diyaar ku yihiin waa taabanay kaliya sidaas uu noqonaya soo majid okay hoos u soo soco kale kan kale fiir geeso madow gelinay soo majid okay wax mugdi ah ayaa geesaha soo galay marka qaabkii aad rabtid ayaad u hagaajisan kartaa halkaan oo kale hadii aad meeshan dalbatid midig iyo bidix labada muuqaal kala dhigaa after iyo before okay kor iyo hoos ayaa la kala geynaa hadii kana aad dalbatid sidaas waaye stylekii ku qanciyo preset ahaan ayaad u save gareysan kartaa kadibna muuqaalada dhan ayaa u isticmaali kartaa waxa sidoo kale jirta meeshan marka imaatid adjust ida ku dhufatid meeshan waxa waaye colorka waa ka hagaaji kartaa tusaale ahaan kale kan uu hore imaad okay meeshan waxa waaye automatic auto data imaatid waxa waaye automatic ayaa colorka loo hagaajinaya laakiin shaqo badan tan ma qabanayso hadda ku dhufo sidaan uu ka dhigay soo majid color ku darabcina oo iftiin iyo wax saameyn lagu diray marka sameey kartaa sidaas u jiidaysaa okay kana soo qabanaysaa dhinacana u jiiday haduu ku qanci waayo dhinaca kale u jiiday bartamaha keenaysaa geesaa geeni waa ku baashaalay macnaha ilaa stylekii ku qanciyo aad aragtid okay white balance kala imaad okay sidaana u jiidaysaa kana soo qabanaysaa dhinacana u jiidaysaa waa qurqurxinay macnaha ma fahanti stylekii ku qanciyo marka aragtid ayaa dhaafaysaa hadana hoos u soo soco meeshan fiiri colorada exposure kana yani dhinacan san wadaysaa brightness-ka sidoo kale dhinacana wadaysaa wajida markasta laakiin waxa laga rabaa meeshaas bartamaha inaan saaid uga fogaanin okay hadda kanoo kale fiiri saaid uga fogaanay soo dhaweey okay quruxu noqonaa soo majid wax yar ku dar sidaas u hagaajinay kanoo kale imaad wax yar dhinaca u wad duu ku qanci waayo dhinaca kale wax yar u wad sidaas ku waday ilaa iyo meesha ugu dambaysa marka stylekii ku qanciyay oo mataqaanaa aad u qurux badan yahay marka dhahdid waxa leedahay save as preset ayaa haysaa okay marka waxa leedahay magac la bixee style 1 oo kala u bixinaysa kadibna waxa leedahay okay kadibna waxa dhaysaa okay muuqaalkii koowaad marka soo majidid waxa waaye dhinacyadaas mugdigaas iyo waxa ku darnay iftiinkii waa badinay kaba soo qababo inaas qurux badan u hagaajinay muuqaalka koowaad maxaa sameynay marka muuqaaladan kale waxa rabtaa marka colorka stylekan inay qaataan rabtaa Soomaan laba nooc sameey kartaa marka inaad sameysid halkan kali ku dhahdid kadibna aad dhahdid edit kadibna aad dhahdid copy effect kadibna aad dalbatid labada muuqaal okay kadibna aad tagtid
edit kadibna aad dhahdid best effect. Okay, click halkan ku sii styleki dhinacyada mugdiga ku jira la qaad soo ma jeedid. Okay, haddana inta imaad sigana dhinacyada mugdiga ku jira. sidoo kale waxaa samayn karaa maadaama presetkan ama stylekan aan save garaystay ana rabo labada muuqaal ee soo hartay inaan ku dabaqo, waxaan samayn karaa in labada muuqaal mid ka mid ah aan click ku dhaho kadibna aan halkaas ku dhufto kadibna color correction aan ku dhufto. halkan markaan imaado meeshaas ayaan furayaa kadibna custom ayaan dalbanayaa. presetka ii save garaysanaay oo dhinacyada madowga ama mugdiga uu kasoo gelayay waa kanaha style 1 ayaa ku qorayd soomaan. waa kanaha style 1 ayaan ku qornay, click ayaan ku siinayaa kadibna stylekii waa lagu dabaqa soo ma jeedid. dhinacyada waxaa kasoo galay mugdi ayaa kasoo galay. okay ayaan leeyahay. muuqaalka kala haddana dul imaanaya waa kanaha, click-aan ku dhahaa asigana kadibna asigana waxaa tegayaa color correction. halkaa markaa imaadana meeshaasaa furayaa, custom ayaan dalbanayaa kadibna style 1 ayaan dalbanayaa asigana stylekii waa lagu dabaqa kadibna waxaan leeyahay okay ayaan dhahayaa. marka muuqaalkii waa kaasaa asigana sidaas oo noqdo. marka saddexdii muuqaalba stylekii oo midkii koowaad aan u sameynay ayay wada qaateen. marka waxaa fudud naqshadii hore oo copy iyo pastiga ahayd ayaa fududeed. haddii aad rabtidna naqshadan waa isticmaali kartaa. qaybtan waxaa ku qaadanaynaa waxa loo yaqaano color match. color match waxaa waaye waxaa laga yaabaa muuqaalkaada in laba kaamiro oo kala duwan inaad ku duubtay ayaa laga yaabaa, marka kalarka uu kala duwanaana. sidoo kale waxaa laga yaabaa muuqaalkan inaad duubtay iyadoo qoraxda ay soo jeedo, muuqaalka kalena xilli habeen ah inaad duubta laga yaabaa. marka kalaradii isku mid ma naqanayaan. markaasoo kale waxaa ku anfacayo wax la yidhaahdo color match. okay, waxaa sameynaya marka labada muuqaala hadda i yaalo. kan waxaa waaye waa meeshaas oo ah xeebta ah qoraxdana ay sii dhacayso. kanna waxaa waaye meeshan doogdooga ah. marka waxaan rabaa inaan muuqaalka dhan ka dhigo in yani mataqaana la duubay xilligan habeen ah ama yani qoraxda ay sii dhacayso kale in la duubaan ka rabaa. marka waxaan sameynaa play hidka halkan keen kadibna labada muuqaal ayaan highlight saaraya soo ma jeedid. kadibna halkaasaan taabanayaa color match ayaan dalbanaa. kadibna marka muuqaalkan oo qoraxda ay sii dhacayso ayaan sidaas u wadayaa. okay, qaybta aan rabo inaan kalarkeeda qaato ayaan dul tagayaa. okay, qaybtan oo kale ay anfacdaba maxaa sameynaa. okay, kalarkan sidaan ah oo qaybtan hoose madow ka ah, qaybtan kore sidan ka ah ayaan waxaan rabaa kan inaan ku match gareeyo oo aan dhaho stylekan qaado. maxaa sameynaa marka match ayaa taabanaya. margin ayuu leeyahay sidoo noqon doona fiiriya. okay, soo ma jeedid. marka color matchna sidaas ayaa loo isticmaali karaa. casharkani intaas ayuu ku egyahay. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. waxaa inoo balan ah casharka xiga.